السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي maanta waxaan wadaa bur aad u macaan badan burkan qudaar ayuu leeyahay alaabtan caadi maaha rabadaantii ayaa udisi diyaar garoobeynaa insha Allah halkaas 2 koob oo buraha iigu jiro sidoo kale sokor ayaan ku darsanaynaa hadeertaan hal xabo ukuna ayaan ku dareynaa hadda qamiirkii ayaan ku darayaa ama yeesti hadba saa u taqaanid jab baan isticmaalaya xabadoo dhan ma isticmaali doono caano ayaan ku qasayaa burka si fiican u qas gacantaadana ku qas hadaa rabtid wax kale waad ku qasi kartaa hadaa rabtid inaad shiidatid waa shiidi kartaa burka muhiimadda waxaa weeye inuu jilco oo sida canjeeradoo kale aa u qastid waayo waxaa hadhow kuu fududaanayso qudaarta inay si fiican isku dhex gasho asagana uu si fiican kuugu dumo oo qurux badan oo macaan badan marka saas ayaan usoo qasanay waa sugaynaa hadeertaan intuu soo kacayo insha Allah 20 daqiiqo meelahaas halkaas baradha ii taala basal 2 barbarooni baqdoonis halkaas waxaa ii yaala orgaana iyo cusbo waxaasna waa usti xagga yaala ama jiisa u taqaanid baradhadan fiiqanaynaa baradhadu waa 2 xabo hadaa rabtid waad ka badsan kartaa baradhada waa xoqaysaa sida ustiga usoo xoqday oo kale usoo xoqaysaa way kuu fududaanaysaa baradhadu ma bislo waa cayriin baradho cayriin ayaa isticmaalaysaa saas ayaa dhinaca waaweyn aan ku xoqanay annaga 2 xabo saa ayaa usoo samaysanay asxaabe alaabtan inaba caadi maaha macaankii kaga dartay hadda burkii waa ujeedaa wuu noo soo kacay barbaroonigii waa soo jarjaranay baqdooniskii waa soo jarjaranay bashashii sidoo kale burkii waa kaasaa wuu jilicsan yahay baradhadii ustigan ku dareynaa isku walaaq si isku dhex gasho cusbada iyo orgaano ku dar hadaa rabtid minti ku bedelo orgaanaha ani xawaaji kuma darin xawaaji waa ku darsan kartaa hadaa rabtid intaas saas ayaa iskugu soo qasanay si fiican isku dhexgeli saliidii ayaan dabka saaranay haddaan dubanaynaa gacantaada waa ku samaysan kartaa qaado waa ku qiyaasan kartaa laakiin wax walba gacantaa ka muhiimsan kaaga fiican kaagana fudud gacantaada waad ku qiyaasi kartaa saas ayaa asxaabay usoo dubanaynaa saliidu aad ayay u gaaban tahay dabka because waa inuu dubmo waaye ilaa gudaha si fiican haddaa saliid kulul ku samaysid burka dhaqso wuu gaduudanaya hoosna ceyriin buu ka noqonaya marka waa inaa aad saliidaada dabka u gaabsan yahay meel dhexaad ay kuu tahay saas ayaan usoo dubanaynaa insha Allah 2 qayb baan ka dhiganaynaa maadaama ilmo cunayaan basbaaska kan kumaanan darin cusbana waa ku yareynay cusbadii hore laakiin steepka dambe dadka waaweyn aan ugu talagalay basbaas iyo cusbo ayaan ku badsan doonaa insha Allah ku dari doonaa waa kaasaa saas gaduudan oo quruxda badan oo noogu soo baxay inaba caadi maaha burkaan asxaabeed shaah ku cabtid markaa soomanta oo kale waa waxaa ku dhargeysid waana wax dhanaan inta badan dadka rabadaanta dhanaanka jecel baanahay aniga ma fahanteen macaankuna maba fiicnaba calool maanta oo dhan soomaneyd hadda waxaan sameynaynaa 2 mar oo kii basbaaska aan lahayn hadda basbaasaan ku darnay iyo cusbo extra ah isku walaaq steepkii aan basbaaska lahayn saasaan uga baxnay يعني muhiim maaha inaad 2 meel ku kala qasatid haddaad rabtid inaad basbaas isticmaashid haddii aad basbaaska wada cuntaana kaba sii fiican ba hal mar baad ka dhiganaysaa alaabtii waa taasaa dhexdiisa saas ayay noqotay ketchup ayaa usoo samaysanaa annaga hadeertaan haddaa rabtid basbaas shidni baa u samaysan kartaa asxaabi ku mahadsantihiin insha Allah saaxiibadiina la sii wadaaga hana naga ilaawanina